dowladda waddanka Czech ayaa sheegtay in salaasada maanta ay geeriyoodeen 6 qofood kadib markii uu nin hubaysanay gudaha isbitaal ku yaala magaalada Istraafa ee bariga dalkaasi uu rasaas la dhacay dadkii ku sugnaa. Booliisku waxay sheegeen in ninka rasaasta furay uu weli baxsad yahay. wasiirka caafimaadka waddanka Czech Adam Wojcik ayaa idaacadda Czech la hadlay sheegayna in isbitaalka Ostrava gudihiisu ay rasaastu ka dhacday halkaana ay ku geeriyoodeen 6 qof sida ay qorayso barta lagu magacaabo News Experts ee waddanka Czech. wasiirka arrimaha gudaha waddankaasi Jan Hamsik ayaa isna sheegay in isbitaalkaasi gudihiisa ay dhibaato ka dhacday halkaana ay ku waxyeeloobeen dhowr qofood. waxa uu kaloo sheegay in booliisku ay la tacaalayaan goobta. wuxuu intaa ku daray Jan Hamsik in ciidamada gaarka ah ee booliiska waddanka Czech kuwaas oo ku qalabaysan helikabtaro ay haatan baacsanayaan ninkii geystay weerarkaasi. waxaa la sheegay in qofka geystay weerarkaasi aanan weli la aqoonsanin. qof ka mid ah shaqaalaha isbitaalka oo hadlayay ayaa sheegay in markay rasaasta maqleen ay isaga jireen gudaha isbitaalka aanay dibadda u soo bixin. waxa uu intaa ku daray qof waliba oo inaga mid ahaana waxuu ku sugnaa xaalad wareer ah. weli lama garan qofka weerarka geystay waxyaabaha ku sababay.